intuusan ilaahay abuurin insaanka ama bili-aadanka dhulkan uusan ku faafin waxaa jiri jiray makhluuq ilaahay caabuda insaanka ka hor, kaasoo ah jinka. jinku waxay ahaayeen kuwa ilaahay caabuda. sida la wada og yahayna ibliis wuxuu ka mid yahay kan ugu weyn jinka. xitaa culimmada qaar waxay dhaheen malaa'igta ayuu ka tirsanaan jiray ibliis, inkastoo qowlkaasi laga xoog badan yahay. ilaahay wuxuu yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbih. malaa'igta ayaa waxaa lagu yidhi u sujuuda aadam, waa sujuudeen ibliis marka laga reebo. ibliis jinka ayuu ka mid ahaa, amarka ilaahay ayuuna khilaafay. aayadda marka waxay ku caddahay ibliis inuu ka mid yahay jinka. hase yeeshee ilaahay baa ka doortay dhammaan jinkii kale. sharaf buuna ilaahay siiyey ibliis ilaa malaa'igta meeshay joogeen la geeyey, waayo ilaahay buu caabudi jiray muddo dheer, iimaankiisuna waa sarreeyey. malaa'igtu waa kuwo ilaalsan oo dembiga ilaahay inay khilaafaan ka dhowrsoon. hase yeeshee jinku sidaa waa ka duwan yahay. ibliis markuusan u sujuudin aadam, amarka ilaahay buu caasiyey. halkaasaa waxaa ka bilaabmay iimaankiisii inuu hoos u aado oo uu noqdo mid ilaahay ka fogaada. asalkiisana ilaahay wuxuu ka abuuray naar iyo dab, sida dhammaan shayaadiintaba looga abuurayba. laakiin ilaahay buu caabudi jiray isagoo la jira malaa'igta. dhinaca kale ilaahay buu ku caasiyey markuu ku dhaartay inuu dhibi doono bili-aadanka, xumaantana iyo naaru jahanaba iyo halaagna inuu hogaamin doono, kaasoo ka yeeraysa inuu ku kufriyo oo uu ku dhuminayo waxyaalo badan oo kala duwan oo shubahaad iyo shahawaad ah adduunyada iyo wixii la midkaa. laakiin ibliis wuxuu malaynayaa camalkaas uu qabanayo inuu yahay mid yar, hase yeeshee ilaahay agtiisa waa mid weyn. inta badan jinku wuxuu isku dayaa in bili-aadanka uu ka yeelo dhammaan inay ilaahay ku caasiyaan oo ilaahay ay ka fogaadaan, taasoo ilaahay awood u siiyey. haddana dhinaca kale markaynu fiirino, ilaahay waa ka digay oo insaanka wuu uga digay ibliis iyo shartiisa iyo camalku qabanayo iyo shaqada u hayo, shaqadaasoo ka yeelaysa insaanka hadduu ku raaco mid ilaahay ka fogaado o ilaahay ku kufriya. dhinaca kale haddaynu fiirino, ibliis maxaa keenay jannada oo soo geliyey? su-aashaa jawaabteeda hadallo badan ayaa ku sugan. qaarkood waxay leeyihiin aadam iyo xaawa ayuu kor ooga dhawaaqay, jannadaba kuma jirin baa ibliis. halkaasuu marka wuxuu uga soo saaray jannada waswaaskiisii markay geedka cuneen ee ilaahay ka xaaraam yeelay. waxaa kaloo la yidhahdaa ibliis jannada wuxuu ku soo galay bahalka loo yaqaano maska ayuu afkiisa soo galay, kadibna maskiibaa jannada soo galay. markuu halkaa kusoo galay ayuu kasoo dhex baxay, kadib buu waswaasiyey aadam iyo xaawa. culamada qaarna waxay leeyihiin jannada mu'miniinta qiyaamaha la gelin doono jannaatulkhuldi maba ahaynba jannadu, waa mid gooniya la abuuray. sarrayn uu sarreeyey markaas ibliis oo ilaahay uu caabudi jiray daraaddeed baan halkaa loo geeyey. laakiin markuu ilaahay ka fogaaday, amarka ilaahayna caasiyey, imtixaankiina ku dhacay, waa laga eriyey meeshii, darajadiina hoos buu uga dhacay. wuxuuna noqday ibliis oo ah mid nacladan oo doonaya insaanka inuu ku rido in badan xumaanta, sharta iyo dhib dhammaantiis. lidaalika dhammaanteen waxaa la doonaya inaynu ku baraarugno sharta shaytaanka oo aynay usha u dhiiban, waayo waanu dhuminayaa. ibliis haddaynu raacno waddadiisana wax xiriira oo rabbigan aan la yeelanayno nooma reebayo. dhammaan dhowaanshaha ilaahay waa naga furfuraya.